dalkeeniyo cawaale wadna ciil jirtay cawaale caafimaadku waar cawaale cimriga jiro cawaale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalayaal casharadan mid ka horeysay waataan kaga hadlay dareenkayga ku aadan golaha wasiirada ee la magacaabay. Marka iyadoo aanay igu fallayn casharadii hore ayaan waxaan rabaa xoogaa naashnaasha inaan raaciyo. Horta guud ahaanba aniga waa saad ku aragtay casharadii hore waa kasoo horjeestay anigu golaha hadda lasoo magacaabay. Waxaan loo arkaa fidno meelaha Soomaaliyeed la dhex dhigay. Dowladduna waa ka badbaadi kari lahayd arrintan hadday la yimaadaan fikir wanaagsan, waa ka badbaadi kari lahaayeen. Dowladdu iyaga arrimihii isku ballaadhiyey. Natiijada ka soo baxdayna waxa weeyaan waa golo wasiira oo tiradii ka fara batay, tayadoodu liidato. waayo waxa ku yar dadku waxay ku andacoonayaan waxaa niman mutacalimiina wada weeye. waa sax, waa niman mutacalimiina bay u badan yihiin, laakiin waxa weeyaan niman dhammaantood intooda badan aan khibradba lahayn. ninku mahma uu shahaadada sare sito waxa ka fiican nin shahaadad dhexe haysta oo khibrad leh baa ka fiican. waxaynu garanaynaa arrintii dhacday ee maxaa ahaa cumar cabdirashiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur. waxa weeya niman shahaadada sare sita bay ahaayeen, haddana say ugu dhaceen dabinkii Kenya iyo maaragtay shaqoolkii maxaa keenay? sababta waxay tahay khibrad baanay lahayn, masabka ay hayeen baanay khibrad u lahayn. keentay taasay ahayd. kuwanuna waa wax uun caynkaas ah, soomaad kale dadka laga soo bixiyey uma laha dhulka loo magacaabay khibrad uma laha. maadaama ay sidaa tahayna waxba maynu kororhsan. taa waxaa ka sii daran fidnada ay abuureen oo dadkii Soomaaliyeed loo qaybiyey class A iyo class B iyo class C loo qaybiyey. taasna cadaawad bay dadkii Soomaaliyeed ka dhex abuuraysa. taas saddexaad waxa weeyaan meeshii wada xildhibaana ah si oo dadkii Soomaaliyeed oo kale oo dhan laga horjoogsaday. xildhibaanadii kii shalayto isagu soo qaatay xaq uma uu lahaa, shaluu ka soo qaatay dhulkii gobolladii uu ka yimi ka soo qaatay oo dad badan ay kula tartamayeen buu ka soo qaatay, haddana wasiir buu qaatay. xildhibaanadiina wuu sii haystaa, soomaad garan xaq uma laha. ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan waa dadkii wada shaqo leeyahay. saxaaraha lagu wada dhimanayaa, dadkii baahi baa wada haysa. ما أنفعه. taas ay ahayd waxyaabaha anigu aan ku diiday. dadku siyaabo kale la isaga macnaysanaya, hadda waa iska ogahay. taas ay ahayd waxyaabaha aan ku diiday. saan sheegay ra'iisul wasaaraha laftigiisa far baa ku godnay, fartii ku godnay dadka lagama qalbin. arrimo waaweyn baa loo haystay ra'iisul wasaaraha, ilaa haddana la iskama qalbin. wuxuu la yimina waxa weeyaan kudka guuro qanjowgo maba dhicin dowlad caynkani maba dhicin intii waddanku uu jiray. maba dhicin dowlad caynkani. dowladihii ku meel gaadhka xoogaa waa badnaan jireen, laakiin dad tayale bay ahaan jireen oo lagu qalbo. dadka kan waxaa kaloo hadheeyey oo meeshan ka buuxa dad tuug ah oo la yaqaano. kuwa fadhi ku dirira qabiilaystayaal oo fadhi ku dirira ayaa buuxiyey. marka waxaas wax la aqbali karo maaha. waxyaabahaas oo dhan baa dadku kaga soo horjeedaan dowladda tan. waxaa lagaga soo horjeedaa xildhibaanada tan meeshii laga buuxiyey. xildhibaanka waa in la helaa ama uu jagada xildhibaannimada banneeya ama uu kala doortaa, labada la kala dooraysiiya. ya xildhibaannimo yaa wasiirnimo waa in la kala dooraysiiya. laakiin waxa weeyaan tan macnaheedu waxa weeye waa laaluush. xildhibaankan waa laaluush. dowladdu si ay u socoto wasiirada tan khaldan loo socodsiiyaba xildhibaanada loogu badiyay. wax la aqbali karo maaha. taa waxaa ka sii daran waxa Soomaaliya waxa ragaadiyey oo iyaguna dhibta qaybka ah tobaniyo islaamood oo xamar jooga oo mar walba wax khaldan u mudaharaada soo kiciya markaa dadka barakacayaasha iyo masaakiinta iyo waxayna soo xusuusiyeen waqtigii
xasan sheikh iyo ra-iisul wasaare saacid waqtigoodii bayna xusuusiyeen dadka barakacayaasha la soo kicin jirayoo arrin sharci u baahan la odhan jiray baarlamaanka cadaadiya oo hala ansixiyo wixii baa la soo celiyey maanta waxaad aragtaan waa kan boodhkii anigan dadkii waa kuwa iga dambeeya xitaa waxaa ku jira dad curyaamiina baa ku jira oo masaakiina soo maad garan waxaana dadkana waa barakacayaal bay u badan yihiin qof aan waxbaba ka garanay waxa kan in lasoo kiciyo oo sharciga la is hortaago baarlamaan baa loo dirsaday arrimaha kale baarlamaanku sharcigii baad is hortaagaysaa markaad wax caynkaas oo kale aad samaynaysa dowladda shaqadeeda ha loo daayo waxaa loo daayay baarlamaanka isagaa loo doortay 6 maamul goboleed baa laga soo doortay baarlamaanka soo maad garan haddii qaarkood ku qanacsan yihiin qaar baan ku qanacsanayn ha la daayo baarlamaanku cod baa lagu kala baxaa haddii ay wax saxa noqdaan oo maaragtay aqlabeydii ay helaanna way soconaysaa haddii laga bato oo la diidana waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin soo maad garan marka islaamaha kale ha la qabto islaamaha kan waa kuwii hore noo wareeriyey ha la qabto islaamaha kan dadka barakacayaasha soo abaabulaya haddii wax loogu mudaaharaadayo ha lagu mudaaharaado oo ha la yidhaahdo xildhibaanku 2 boos iskuma heli karo ha la yidhaahdo xildhibaanku 2 boos iskuma heli karo ha la yidhaahdo yaa wasiir ha noqdo yaa xildhibaan ha noqdo ha laga mudaaharaado mushaharkan wasiir waliba wuxuu qaadanaya $6,000 buu qaadanaya madaxweynayaasha adduunku ma qaataan waddan dadkiisii dhimanayo baaba'ayo baa loo soo shaqo tegay waxaa la qaadanaya xildhibaanku wuxuu qaataa $3,000 buu qaataa waad aragtaa ciidankii iyo dadkii kale iyo say u baktiyayaan waad aragtaa shaqaalaha kale ee sarsare ee dowladdu saasay u qaataan lacagayo saa u fara badan bay qaataan oo aan macquul ahayn dadkiina waa dhimanayaan kuwii amniga ilaalinayay wax allaaliya waxay qaataan ma jiroon iyagoo baahi bay u dhimanayaan marka ka mudaaharaada waxyaabaha caynkaas ka mudaaharaada laakiin golihii wasiirada la socodsiin waaye waxaas waa u daaya baarlamaanka shaqadiisa u daaya oo islaamahana ha la qabto islaamaha kan ha laga qabto dalka islaamaha kan dadka kicinaya marba baadilka taageeraya waxaan sharci lagu kala baxo bay leeyihiin sharciga ha loo daayo waxaa lagu odhanayaa soomaaliya meel xun bay taalaa maanta halkan kuwanu ka saari maayaan meel xun haddaan hadda la is hortaagin kuwanu waxay ka sii dhimaan mooyaane kama saarayaan soomaaliya meesha ay taallo kan kuwa ka qaadaya maaha marka waxaa weeyaan anigu waxaan ka jeclaan lahaa dowladdu inay dib isugu noqoto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu dib ay isugu noqdeen ha saxeen waxay sameeyeen waxaa u dhaamay wasiiro kooban oo taya leh oo aanay ka muuqan in beelaan lagu naasmuujinayo way wanaagsaneyd dowladdii xasan sheekh markii ay 10 wasiir ay keeneen way wanaagsaneyd laakiin waxaa la aqbali waaye markii ay dad gaara siiyeen beelo gaar ay siiyeen beelo kalena waxaan loo baahnayn bay ka dhigeen marka arrimaha caynkaas la aqbali maayo waxaa weeyaan 10 wasiir hadday yimaadaan dad khibrad leh soomaali oo la yaqaano soomaalinimadooda la yaqaano khibrad leh aqoon leh waa in la keeno dadkii baa laga hor joogaa oo soomaaliya wax walba way leedahay dabadaha iyo gudahaba waa dadkii waa buuxaan intaa yaree meeshii isugu timi unbaa meeshii isku wareejinaysa oo aanay kaba dhammaanayn hala doono dadka waddanka wax tari karaa hala doono oo khibradda leh in dowladihii 60kii kuwii la soo shaqeeyay baa ilaa maanta la helaya oo weli qaarkood ay howlgal yihiin oo weli ay shaqayn karayaan dad khibrad leh oo wax waddanka kusoo kordhinaya oo yaqaano waxyaabaha shaqooyinka dawliga ay yaqaano ayaa weli jooga oo nool dad baasoo haddeer iska yimi oo dibadaha oo nolosha ka wada dhacay baa isugu yimi halkaasoo waxaasaa dunidii waalay oo meeshii waxaa weya dadkanu dad damiir leh maaha ninka maanta ku fekeraya $6,000 wasiirka qaadanaya damiir ma laha waxaa weeye war ummadda saa u baaba'aysa saas maanta intaa maxaa gaadhaya dadkii marka igu qaataan 70 wasiir 70 wasiir baan ku dhufo min $6,000 haye baarlamaankii maxay qaadanayaan baarlamaankii halkii qof wuxuu qaataa $3,000 shaqaalihii kale ee sarsare ee dowladda wax intaa iyo wax ka badan bay qaataan maxaa marka maxaa la qaban karaa maxaa dad loo qabanaya beenta maxaa dadka loogu sheegaya maxaa loo qabanaya dadka waxaa inay dowladdu wax ka qabato bay ahayd oo ay maaragtay dad ummadda
ay ka shaqayso oo wax ka qabato wasiiradatan wallahi waxaan soo jeeday waxaan xogogaal u ahaa dalka Eritrea la yiraahdo markii ay qaateen gobonimadooda ay qaateen dalkaas wax allaale iyo waxay dadkaas haysteen ma jirin wadaninimadu wax qaaliya qofku markuu wadankiisa ka fikirayaan calooshiisa ka fikiraya yaddi Soomaali caloosheeday ka wada fikiraysaa nin wadaninimo iyo wadanka yani ka fikiraya ma jiro ay ma qaadaneen waxaa ma qaadaneen war hore la is xisaabin lahaa laakiin wali waa la qawadayaa waa lagu siiyay war hore is xisaabin dalka waxaa dhisay oo wax siin jiray oo yani wax aanay dee gabdhay jaalayeeda ah oo wadamada khaliijka ka shaqeeya ayaa xoogaa lacag u soo diri jiray xoogaa lacag u soo saari jiray xoogaagaasaa la qaybsan jiray oo nolosha lagu socodsiin jiray haddii la heli karo dadku waxay ku shaqayn jireen bilaash bay ku shaqayn jireen ilaa dhawaanahan dalka Eritrea bilaash bay shaqaaluhu ku shaqayn jireen wasiiro iyo shaqaale kasta oo dalkaas oo dadka caynkaas oo kale baa meel gaari kara laakiin kuwana daacad maaha waa nin iska soo yani wadan burburay oo dalkiisii baaba'aya oo dadkiisii badaha ku dhimanaya oo xaaladda ka taagan la ogyahay abaaraha iyo dhibaatada taagan oo nin waliba uu doonaya inuu $6,000 qaato halkaa oo kharashaadkiisa kale u dheer iyo waxaas kale u dheer waxaas wax biniaadanimo maaha dad waa biniaadanka waynu ka hooseynaa ummadda biniaadanka waynu ka hooseynaa dad ka hooseeya baynu nahay biniaadanka markaasaa la cabanaya laleeyahay midda kale ha la socodsiiyey waxaan imisaynu ku jirnay ha la socodsiiyey war haddeer haddaan la ishortaagin wax kasii xumaadan maayo wax kasoo wanaagaya wax ka wanaagsananaya ma jiraya haddeer maantay habboon tahay maanta ha la iska qabto oo intaad ka bannaan baxaysaan wasiiradan ha la socodsiiyo ka bannaan baxa mishaarkan la qaadanayo ma kale xildhibaanada tan wasiirada noqonaya oo labadii jagaba isku haysta ka mudaaharaada kuwa ka mudaaharaada dalkanu ma qaadi karo wax ka badan hadday ugu badato 15 wasiir 15 wasiir laakiin dad kuwaala tile ah dad Soomaalidu dad aanay xitaa qabiil u eegayn baa jira oo la yaqaan haddii lagu soo daro wadanka la ogyahay Soomaali waa istaqaana dadka qaarkii haddii la keeno dad macquul u qalmo oo wadaniyiina oo aqoon leh wallahi inaan nina hadlay qabiilna aanu hadlay haddii 5 wasiir uu ka dhigo aqoon leh oo yani dadku wada qanciya hadduu ka dhigo wallahi inaan cidina hadashay laakiin adiga meesha isku adaad isfiidsay oo saa isu ballaarisay dee dadka cidina ogolaan maysa inay kalaasiin noqoto ama kalaasi B noqoto ama dadku meelaha Soomaaliyeed oo isku wadan adaa isballaariyey marka xal samay haddii la siyaado waxa kan xoog ku maray iyo maanta fursad baad haysataan iyo dawladdii baad joogtaan waa laydinka daba qaylinaya arrintaasuna idinna waa idin dhibaysaa soo maad garan inkastaba codka iyagu ha gaadho waa laydinka daba qaylinayaa caafimaad ku dhammaysan maysa xal la soxo haddeer waxaa la soxo oo dib ha la isku noqo islaamaha kana naga qabta oo islaamaha soo kicinina mudaaharaadka iyo barnaamijyada samaynaya dadka masaakiinta u arxama ee noloshoodii quudkoodii la ee maalin walba lasoo bacadka la taajinayo u arxama la xawla walaa quwata illaa billah dee inahaasaan iskaga soo koobayaa runtii yani wax aad loo waxa weeyaan dadku dee hankii la qabay iyo waxa dhacay baan islahay hankii la qabay ummaddu ay qabtay iyo waxa dhacay ayaan islahay dee laysma lahay wixii hore wax ka liita baa la keenayaa laysma lahay maxamed cabdullaahi baa yimi aad baa loogu haweynaa wixii hore laga soo gudbay wax ka liita baa imanaya cidina kuma tirakin laakiin maanta waa ka xunnahay muddadii badnayd ee ummadda yani intii qaylinaysa ee yani soo tacabtay ee maxamed cabdullaahi u sacabinaysa waa maanta wada muraardilaac haddeerna meel wax laga qabto waa la joogaa waxaan leeyahay labadan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dib ay isugu noqdeen ha la yimaadeen hal adayg iyo ku dhac ha la yimaadeen xildhibaanada ha kala dooransiiyeen shaqadooda iyo wasiirnimada hadday qaadanayaan dadka dhulka loo qaadanaya ha ahaadeen dad ummadda qanciya qofaan wasaaradaana weligiiba daawan oo meel ka arag oo aanu aqoon u lahayn baa loo dhiibay
خير بان الدين رجينا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.